laba qola adduunka iman buu nebigu yidhi soo socota qola jeeda la wato dadka dariiqyada intay qabtaan ku garaacaya iyo gabdha maaragtaana ismoodaya dhar inay xidhan yihiin wada qaaqaawan buu nebigu yidhi kuwaa jannada gali maayaan jannada inay galaan iska daaye carfiga jannadana urini maayaan carfiga jannadana waxaa la uriya udgoonkayga 500 oo sano marka jannadu kuu jirto ayaa udgoonkaygu qofka soo gaadhaa labadaas sinfi buu nebigu leeyahay hadda arki maaye waa rag budad bay wataan oo dadka dariiqada intay ka kaxeeyaan bay ayay la dhacayaan oo gardarray qofka u garaacayaan iyo gabdha maaragtaane dhar inay sitaan bay ismoodayaan kaasiyaatun caariyaad baa nebigu yidhi dhar inay xidhan yihiin bay moodayaan dharna ma xidhno way qaawan yihiin baa nebigu yidhi maa'ilaatun mumilaat jidadka markay marayaanna way isqalqalloocinayaan wixii meelaha rag ag joogana way qalloocinayaan buu rasuulku yidhi sida isku qalqalloocinaysa raguna sidaa usii eegayaan ula qalloocsamay إذ بالقولي ورها إيجنا عندها قلابو وزيناها للناظرين بولي لا حول ولا قوة إلا بالله جنة قال ما يا أبو نبي يقول كواسي عرفك جنة هل ما يا جنة مركي عرفك وح الله لا شم بقول وصلنا مركي مش لا سعد وقفك وجرت قبل المؤمنات يا صحابية دي مدو ayadoo maankaygii iyo miyirkaygii uu daboolmay ayay ka fikiraysaa inay cawradeedu aysan baylahmin markaa bay nebiga ku tidhi xanuunka haddii janno ilaahay igu siinayo iska daa laakiin meeshaan doonhan iskaga dhace maradu inay iga baylahmin bas inta ilaahay weydii xishoodku fiicana haweenkana ku sii fiicana waa u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas allah raalli ka noqdee ayaa zamankii dambe taabiciintii dadkii markaa nebiga aanan soo gaadhin ee saxaabada nebiga soo gaadhay buu ku odhan jiray alaa uriika imra'ata min ahli ljanna haweeney ahluljanna ama ku tusaa markaa bay odhan jireen haa haweenaydaa madow ee halkaa maraysa waa ahlaljanna buu odhan jiray ibnu cabbaas cataa ibnu abi rabax buu u tilmaamuu ka yidhi cataayow haweenaydaa madow soo ma arkaysid haa waa ahlaljanna weeyaan haweenka jannada galaya aad bay u badnaayeen maalin gabadh baa tidhi 10 mubashiriina biljanna baa la sheegay hawa dumarkii jannada gelaya hamaa la sheegay khadiija radiyallahu anha almu'miniin mubashira biljanna kaligii jibriil calayhi salaam ayaa samada uga yimiday markaa buu nabigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam wax kala ma sido allaha salaamku salaam ka wadaa ayuuna u sidaa khadiijata alkubraa radiyallahu anha almu'miniin buu u sidaa u yidhi yaa muxamed المؤمنين خديجة الله سلام قال سو سلام أيي وعنا اللي يقول بشارة قصر الجنة كويا لا إله ودياريه أنس بن مالك رميصاء أم رميضاء أيضا ومبشرة بالجنة ونبينا عليه الصلاة والسلام أيا كويري سليمي حليتو لجنة أيان قالوا إلهي التصي أضا يهرس عدنا وانكو أركب رسولك كسو يري فاطمة إن محمد عليه الصلاة والسلام وأيضنا ومبشرة جنة والله بشاريي ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يا يري فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة إن أنت إذا فاطمة برسولك يري هوينك أمة النبي محمد الجنة قالي دونا وقبض وقود رجس الرسول أكبر وقبض برسولك سمية رضي الله عنها يدنا وأهل الجنة ويدا هي ننكدي هي إنكدي عمار مركو النبي قد دل يمدي أيكم مقالة مكة دقح ذي ذي جقع قال له عذابا يو وأمرك دين غريب كهيدا مكة لا عذابا يا مؤمنين تا إيه قريش أي عذابا صحابة رسولك أيو النبي قد كريم دي سمية وأم عمار هي أذكي ياسر هي إنكدي عمار ولا عذابا يو مركز سيد هذين الدهر هكذا يا رسول الله سنتك أردن أنكم مدبك يا عذاب كما كجرينا مركب النبي يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبرا النبي يقول أتكيست أبالك إنك وجنة ويانا هذه الجنة أي مغلان
وحلي واحد دباتة الدنيا ذا لسه درستون ويهالمامين يكو ويبقى هوين يدا مدوقك حنون كي قبتك ويدع عيسى صوحدين بيلاده هاي لكن مركو النبي كويري هداد صبر لهي جنة إلهي كوكو بدلي لها اسكدا بيكوتري بس الكي سكو داف ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم كي نبي نوح عليه الصلاة والسلام أهل الصفيه مقالة المدينة قراني قرابة أن كلها إنين كمد أيوها مساجد كالنبي قلنا مؤخرة دي سدا بأيود دقنا أهل الصفوه وحي هايين رق مال مدن أي أفكوغا أين انهلجن عنتا أي قليان أبا هريرة كمدها markay nabiga ag fadhiyaan baa la yiri xataa cawradoodu sideen u muuqan marada yaraysitaan ee guntiga ee hoosta lagu xidho ayay labada lugood intay qabtaan ba isku xajinayeen baa la yiri iyagoo cawradooda nabiga ka qarsanaya dhar la'aan cunto la'aanna nabiga u yeedhay maalin ahlu sufaha laba timiru nabigu siisiya laba timira maanta aduma ku qadayn lahayd barwaaqan ku jirnaa inaku barwaaqo nicmad shukriga inagu yar maanta laba timiru nabigu u dhiibay ahlu sufiya war Abu Hurayra labadan qabso war Rabiica labadan qabso war fulaan labadan qabso Abu Hurayra Allah raali ka noqday wuxuu yiri xabadna waan cunay markiiba oo waan gaajoonayay xabadna halka guntiga ayaan ku duubto ku laabay markaa uu nabigu igu yiri lima rafa'ta hadihi ya Abu Hurayra xabadan timirta halkan aad gelinaysa maxay tahay cunde markaas uu hooyadii baan u geenay Abu Kay markaa uu nabigu uu hooyadaana annaka kuugu dhiibaynay iska cunbu Kay Abu Hurayra wanaka maanta xadiiskiisa markaad maqashaan aad ku raaxaysanaysaa xadiista aan inta badan aan sheegayno oo isaga wariyay inta badan laakiin uu sabray uu tabcay diinta tacab buu galiyay diinta uu gaajooday diinta uu huray wuxuu jeclaa inuu magaalada Madiina ka xogsado uu karayay laakiin wuxuu gartay jawaahirta nabi maxamed afkiisa ka soo baxayso ummadda u reebay ilaa qiyaamaha ربيعة مركا رقص كمدها ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وحوير إسقا كشاكين يا هبينك مرقو نبي صوكع عليه الصلاة والسلام إلا أقلده مركا الزمن قاسي أقلده بحدو بسقل الله حاجودو يتوالد ملهين بنانك مقالة مدينة اللو بحجري مقالة مدينة بهلا بهلا بدن بيلهين مركا أبو يري ربيعة nabiga ayaan u soo qaadi jiray buu markaa cadaygiisa iyo biyaha weesadan u sii diyaarin jiray buu habeenkii Madiinatul Munawwara marka dhulku uu yahay xilliyadana qabowgeega waa caadi ma qabowgeega markaasaan u keenay nabiga biyihii weesadii iyo cadaygii dana xaajadiisii uu nabigu soo gutay inta nabiga la socdaa buu waan way ilaalinayaan nabiga moogta sallallahu alayhi wasallam markuu nabigu soo noqday buu arkay Rabiica oo aad u dhaxmoonaya oo gaajoonaya markaa buu nabigu ku yiri Rabiica salli maanta waxaad doontay weydiisay buu caawa nabi maxamed ba hadal kaale ku salliya ya Rabiica salli ya Rabiica waxaad doonta caawa sheego biyaale hadalka Muhammad alayhi salatu wassalaam wa nabige wa nabi ducadiisu mustajaaba ay tahay والنبي أود ويا شيء جد إنه ويا جد بويا جد والنبي إلهي أوصي تأييدات هي معجزات ضميرك هذا الجسوم مغلى يا نبي محمد ضميرك والنبي إلهي أود وحوق لي هدور الله بورت إله والك كقاد إلهي بورها وكقاد إلها مقالة مكبر لي والنبي ربيعو شاقعه وحدونيس واسكن نقول إيكاد النبي الله هل قابو فريستي نكن ونبي محمد كله يهد باهد هذا عاوة إيشاق وانين مقالة المدينة أقل كمالة جاقا كمالة قرابة كمالة قرين كمالة مالو وحكعنا ما هيستو هديد النبي الله كان أيو نبي أهل الصفان أو حكسية مالمت نمبا صوريك صدح مالموت أفر مالموت وضبان مالموت على شو دا عنتي قليان مهلان حبت تمره هذا هلان بيكون يا أبا الكوكبا نيك باهدا أي هيسو
ayaa nabi maxamed fursad intuu siiyey uu ku leeyahay yaa rabiica waxaad doonta caawa sheego salli ii sheega caawa waxaad doonaysa markaasuu u yimid oo wuxuu yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna yaa rasuul allah wax kale oon sheeganayaa ma jirtee inaan jannada kula noqdo rafiiq ilaahay intaa ii weydii buu ka yidhi meel baa u caddayd iyaka inaan jannada kula noqdo rafiiq bas kugu arko kula saaxiibo kula fadhiisto kula jaar noqdo ku arko intaa ilaahay ii weydii say nebiga u jeclaayeen cajiib indhahoogay ka jeclaayeen ubadkoogay ka jeclaayeen naftooday ka jeclaayeen waa kii nebigu cumar ku lahaa markuu cumar nebiga ku yidhi yaa rasuul allah dadkayga iyo dadka oo dhan iyo waxa adduunka yaallo oo dhan adaan kaa jecelahay naftayda mooyaane markaa buu nebigu yidhi cumarow weli weeyaan waa weli ilaa aad naftaada iga jeclaato weli iimaanku qalbigaaga ma fadhiisan ma naftaydana haa naftaadana cumarow ku dar wallaahi nebi allow naftaydana waan kaa jecelahay al'aana yaa cumar buu nebigu yidhi haddaa iimaanku qalbiga ku galay buu rasuulku ku yidhi hadduu gaadho iimaankaagu halkii la doonayey nabigay jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ka fikirayaa adduunyada maaha waa aakhiro yaa rasuulallah jannada rafiiqan kula noqdo bas markaa buu nebigu mar labaad buu u qabasheeyey wuxuu ku yidhi aw hayra daalika taatu aan ahayn oo kalena sheego haddana markaa buu yidhi huwa daaka muraad kale anu ma lihiye muraadkaygu waaba intaasuu yidhi markaa buu nebigu ku yidhi faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud waa hagaag rabiicow adiguna waxaad igu soo caawisaa sujuudda soo badsa buu nebigu ka yidhi nebigaa janno ii bishaareeyey ha ku gaabin cibaadadii ilaahay bal soo ziyaadi cibaadada daacadda ziyaadi salaada ziyaadi khayrka ziyaadi u dhowaanshaha ilaahay aad u dhowaanayso sii ziyaadi anigana miyaa taa aad i weydiisatay waad ku dadaalayaa inaad iga heli doontee adiguna sujuudda igu soo caawi buu nebigu ka yidhi ayaku jannaday fahmayeen jannadu waa daar nuuceeya waa daar ilaahay baa dhisay tabaaraka wa tacaala dhagaxda laga dhisay buu nebigu sifeeyo wuxuu yidhi labinatun min dahabin wa labinatun min fida labadan dhagaxee jannada laysduldhigee laga dhisay midna dahab buu ka samaysan yahay buu nebigu yidhi midna lacag buu ka samaysan yahay ahlaljannuhu jannada dhexdeeda buu nebigu yidhi way cunayaan way cabbayaan wakhtigay cunayaan xad ma leh wakhtigay cabbayaanna xad ma leh way cunayaan way cabbayaan ma saxaroonayaan kaadi yeelan maayaan qandhuuf iyo siin iyo khaakatan midna yeelan maayaan buu nebigu yidhi cuntada maanta adduunyada ugu macaan haddaad cunto saacada kadib halkeed geynaysaa baytalmaygaad geyn aqalka adduunyada ugu qurux badan bilaa baytalmay ma dhici karaa inuu noqdo waliba aqalku ka sii qurux badan yahay ee si casriga loo dhiso ayaa tuwaaleedkiisana si casriga loo dhisaa iminka carabtuna tuwaaleedka waxayba u taqaanaaba bayturaaxa aqalka raaxaday u yaqaanaanba aad cuni waa inay ku dhaaftaa cunnada adduunyadu laakiin jannada dhexdeedu waa cajiib cuntada jannada buu nebigu yidhi waa la cuni waa la cabbi laa yataqawaduun walaa yamtakhituun walaa yabuuluun walaa yadfuluun baa nebigu yidhi cuntada jannada waa la cunayaa waa la cabbayaa sharaabkeega maaha saacado waxa la cunayo boqolaal sano kumanyaal sanaa la cuni doonaa cunnadaa la cunaya buu nebigu leeyahay saxaro noqoni mayso kaadi noqoni mayso duuf iyo siin iyo qandhuuf iyo kaakatana noqoni mayso oo haddaa maxay noqonaysaa cunnadii waxay noqonaysaa buu nebigu yidhi wuu daacayaa qofku daacada adduunka markaad daacdo islaantaada dhan baa ku odhanaysaa war daacadaada qarmuunkeyga xaggaa noogala jeeso soo ma odhan karto uf war maantii maxaad soo cuntay waxbaa kaa uraya xagga uka ya allah daacada jannada buu nebigu yidhi waa misk udgoon la ursado cadarka ugu udgoon ee jannada dhex yaalla ayaa calooshiisa ka soo baxaysa qofka muuminka biyihii iyo sharaabkuu cabbayay
إلا جنة وحال الشيء وبيال لين دردوريان وبي عانا وبي ملبا وبي خمريا وبي بياء انت ابا هوس هذا مرايا مركاس العبيسا هذا ما انت عبتد مركا بيت الميغا اياد u baahan oo kaadi baa ku qabanaysa habeenkina laba saddex jeer buu qofku kacaya xilligu dhulku qabow yahay ahlal jannaha miya may kaadi yeelan maayaan buu rasuulku yiri oo sharaabkii cabeen muxuu isku bedelayaa waxa uu noqonayaa buu nabigu dhidid buu noqonayaa dhidid cunadiina daacay noqotay udgoon sharaabkiina wuxuu noqonayaa dhidid buu noqonayaa dhididka adduunka waa qarmuuna waa la iska maydhaa dharka aad ku dhididayna waad iska bedeli laakiin jannada dhexdeeda dharkana la bedeli maayo wajigana la maydhi maayo ahlul jannati juradun murad kuhla la yafna shababuhum wala tabla thiyabuhum ba nabigu yiri ahlul jannati juradun murad ahlul jannuhu gar yeelan maayaan tima dhogorana yeelan maayaan xaggan wala meel kale tima badana yeelan maayaan gadna yeelan maayaan buu nabigu yiri kahla indhahoogana waxaad moodaa indho ku xulin loo mariyaad moodaa bal wayba ku samaysan tahayba la yafna shababuhum dhallinyarnimadoodu ma gabowda buu nabigu yiri 33 jir wa fi riwaayatin 30 jir baa lagu joojinayaa ama 33 jir inta ka yaraani maayaan kana mana dhaafayaan la yafna shababuhum wala tabla thiyabuhum dharkay xidhaana ma baaliyo buu rasuulku yiri jannada dhexdeeda suuq baa ku yaala suuq aljumca layda suuqa ba helal jannuhu iskugu imanayaan buu rasuulku yiri fatahubbu alayhim riihun min qibal min ash-shimal dabayl ayaa xagga kaga iman doonta dhinaca bidix dabayshaasa wajigoogii ku dhifanaysa suuradoodii bay badilaysaa buu nabigu yiri kalarka dharkana way badilaysaa ayagoo kalarkay xaafadda kaga tageen dharkoogu kalarkii maaha wajigoogu kalarkii maaha ayay ku soo noqonayaan dumarkoogii xawraadoodii xuralcayntii baa odhan doonta war markaad suuqa nooga baxdeen nagu soo noqoteen dharkiinni waa isbedelay kalarkiinni waa isa soo bedelay waa ini sidee markaaba iyakoona odhanayaan wallaahi annakana intaan niga maqnayn waa layni sii bedelay ininkana suuqa adduunyada markaan tagno maxaan kala soo noqonaa qurux mise foolxumo boosboos baad kala soo noqon iyo cawlaan iyo siigo iyo dhafoorkaaga dhaf baa ka muuqanaya markiiba suuqa jannada ku yaalana qurux baad la soo noqon qurux dharkaagu baaliyoobi maayo dhallinyarnimadaadu gaboobi mayso mitir ya badhna la ekaani maysida waxaad noqonaysaa dhararkii nebi aadam calayhi salaam 60 diraacan fi samaa wa 30 mitir baa lagu qiyaasaa ma gaboobaysid ma dhimanaysid ma bukoonaysid ma baahanaysid baytalmay geli maysid ma seexanaysid daraari habeen waad iska ciyaariyo tuman insha Allah dhahada qulu insha Allah haweenka jannada nabigeena ka sheekeeyay calayhi salaatu wassalaam nisaa aljanna haweenka jannada muuminka loogu diyaariyay buu rasuulku yiri mid kamida iyaka haweenka jannada muuminka loogu diyaariyay mid kamida buu nabigu yiri haddii adduunyada u soo bixi lahayd oo adduunka loo soo saari lahaa udgoonka jidhkayga ka soo baxaya buu nabigu yiri ayaa samada iyo cirka isqabsan lahaa buu rasuulku yiri gabadha muuminada ee jannada galaysa muuminka jannada loogu diyaariyay hadday adduunyada u soo bixi lahayd oo dhoola cadayn lahaydna iftiinka iligeyga ka soo baxa ayaa cadcadda iftiinkeyga shiiqin lahaa buu rasuulku yidhi xawralcaynta ka mid a faryaradeedaa yar buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nool oo dhan baa fitnoobi lahaayoo biyuhu ka iman lahaayeen buu rasuulku yidhi marada yare madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyadoo dhan waxa dulyaaloo dhan ka khayr badan buu rasuulku yidhi muuminku jannada markuu galana muraayad u baahani maaye xawralcaynta dhuunteedu isku daawanayaa markaasuu isku eegayaa wejigeegu akhrisanayaa waxaa ku qoran naxnu raadiyaatu falaa naskhad annaku waxaa nahay kuwa ninkooga raalli ka ah oo weligood aanan cadhoonayn wa naxnu alkhaalidaatu falaa namuut annaku waxaa nahay
kuwii weligood jannada ku waaryaayay ee dhimasho aan u saaxiib noqonayn wanaxnu naacimaatu falaa nab'as annaku waxaanahay kuwii alla u nicmeeyey balaayo iyo buus iyo dhibaato aanan arkayn tuubaa liman kaana lanaa wa kunnaa lahu ka noo ahaada nin een annakuna xaasu noqonnaa liibaanay bay leeyihiin ibnu cabbaas allaha raalli ka noqday isaga iyo aabihiibe muuminka banka qiyaame kitaabkiisa gacanta midig marka laga siiyo waatan aayadda qur-aanka ilaahay ku sheegay wa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalibu ilaa ahlihi masruura ehelkaagu kuwan adduunka aad ku haysata maaha ehelkan adduunyada aad ku haysato ibtilaa baa laguu siiyey ikhtibaar waa lagugu eegayaa inay ilaahay taacaddiisa ku seejiyaan iyo inaad taacadda ilaahay aad ku fulisid baa lagugu eegayaa laakiin ehelkaaga runtu waxa weeyaan waa ka maalinka qiyaamaha muuminka gacanta midig kitaabka marka laga siiyo ee xisaab yaroo fudud la xisaabiyo markaabuu u gadoomayaa baa ilaahay yidhi ehelkiisii oo sugaya ayuu xaggooga u noqonayaa buu ilaahay yidhi albaabka jannaday joogaanay ku sugayaan baa la yidhi albaabkay ku sugayaan kitaabkiisii buu gacanta midig ka qaatay xisaab fudud baa la fudaydiyey xisaab fudud waa maxay lama baadhbaadhin buuggiisii lama baadhba haddii la baadhbaadho waa khatar ilaahay baa asturay oo naxariistiisii buu huwiyey addoon baa lala soo keliyoobi doonaa banka qiyaamo buu nebigu yidhi oo la odhan doonaa adiga rabbi baa kuu yeedhaye soo kac markaasaa ilaahay caza wajalla sitrigiisaa ilaahay huwini doonaa markaasuu ilaahay addoonka uu la hadlayaa hadalka addoonkiiyo rabbigiisa dhex maraya makhluuqu maqli maayaan malaa'igtu maqli maayaan muqarrabiintu maqli maayaan waa laga qarinayaa waxa uu ilaahay qirsiin doonaa dunuubtii adduunka dusheeda addoonkan uu ku qarsanayay baa ilaahay u sheegi doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkaygiiyow dembigii caynkaas iyo caynkaa ahaa ee maalin heblaayo halka aad ku samayseen ma xasuusan tahay markaasuu leeyahay markaa buu ilaahay odhan doonaa adduunka dusheedana waan ku asturay maantana waa kuu dembi dhaafay kitaabkiisaa gacanta midig laga siinayaa deedna xagga ayaa jannada u ordaya markaas allah inaga dhigo kuwaas mahdaan dembi lahayn muu inagu jiraa may macsuumiin ma nihin dembi uu naga dhacayaa laakiin naxariista ilaahay baa ballaadhan ilaahay naxariistiisaan rajaynaynaa mar walba ka quusan mayno dadkana ka quudin mayno naxariista ilaahay dadkana ka quusin mayno muuminka markaa kitaabka la siiyo ehelkiisii buu ku noqonayaa ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa yidhi mid kasta oo kitaabka gacanta midig laga siiyey xawraadiisii baa iridda u taagan oo sugaysa markaa buu daymoonayaa daymashada oo keliya ayaa qaadanaysaa la yidhi 70 sannadood eebse sano arooska habeenka ugu horreysay xaaskaaga lagu soo hooyo 20 daqiiqo saa ma u eegi kartaa waar maxaad naga eegi bay ku odhan indhahay faraa kaa gelin maxaad ya yani maba haleelaysid ba adduunka dusheeda 20 daqiiqo qurux intaa la egoo la eega dadka adduunka jooga ilaahay maba siinba fa maxaad u malayn gabadha 70 sano aad daawanaysid quruxdeeda iyo jamaalkeyga ibnu cabbaas wuxuu yidhi laakiin ayaa daawan doona ma taqaanaa waa ka adduunka intuu joogo maxaarimta indhihiisa ka laabta kaasaa xuurlacaynta daawashadeeda ku raaxaysan doona waqul lilmuuminiina yaguduu min absaarihim udaymoon saasuu u daymoon muuminku 70 sannadood tucaaniquhu wa yucaaniquha ku boodi marka iyadna way ku soo boodi mucaanaqada waa qooroqooraynta mucaanaqadoo keliya buuhi ibnu cabbaas haddana 70 sano kale haddana haysan buu yidhi sidaa unu haysan markuu jannadii arka naciimteedii 4 shay oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadamka nolosha ku qaraaraynaysay ayaa ahlaal jannaha maskaxdooda ku soo dhici doona waa 4 waa geeridii waa gabowgii waa baahidii waa bogtaantii 4 baa maskaxdooda ku soo dhici doonta ma naciimka intan la eg ayaa ilaahayna siiyey
markaasay afartaa xasuusanayaan baa la yidhi xagga saraa laga dhawaaqi oo la odhan doonaa yaa ahla aljanna inna lakum an taxyaw falaa tamuutuu abada yaa ahla aljanna maanta laga bilaabaa jannadan waxaad ku dhex leedihiin nolol daa'ima dhimasho dambe arki maysaan nicmad joogto ah oo nuqsaan dambe aanan lahayn dhallinyarnimo gabow dambe aan lahayn caafimaad qab xanuun dambe aanan lahayn allah ina siiyo jannadaasaa ilaahay inoogu baaqayaa maalin walba oo lagu leeyahay salaada markaad tukanayso ee mu'adinku uu ku leeyahay xaya cala asalaax xaya cala alfalaax jannadaa ishorkeen jannadaa ku xisaabtan bishii rabadaan baa soo gashay jannadaa ishorkeen sadaqad baa bixi lagaa leeyahay jannadaa ishorkeen qur-aan baa lagu leeyahay kaale akhri jannadaa ishorkeen aakhira wax u bixi baa lagu leeyahay jannadaa ishorkeen markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisii isagoo maalin fadhiya ayay nimankii muhaajiriintii maka ka soo hijrooday ayaa sare kacoo nebiga ay ku yidhaahdeen nebi allow magaalada maka annaku aan ka imanayn ka soo baxnay maa u zamzam baan ku haysanno iib ma ahayn halkan biyuhu waa iib magaalada madiina ceelashana niman yahuuda inta badan iska haysta lacagaan ku iibsanana ma haysanno markaa ninkii ceelka bi'ru ruuma lahaa ayuu nebigu u tago wuxuu ku yidhi asxaabatayda muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabbaane markaasuu yidhi u fasixi maayo oo anu ceelkaa yar baan leehayo biyaha yar baan iibiyaayo reerkayga ayaan ku biiliyaa markaa buu nebigu ku yidhi bicniihi bicaynin fi ljanna il jannada ku taalla ceelkaagaa ku bedilo ku iibso markaasuu yidhi may ceelkaygaa yar iska iibin maayo iska kaydaa buu ka yidhi cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu oo daki ahaa oo caqli badnaa oo inshiisu meel dheer wax ka arkaayey oo basiiro ilaahay uu siiyey ayaa hadalkii nebiga qalbigiisa ku dhibcay bicniihi bicayni aljanna il jannada ku taalla ceelka igaga iibso markaa buu ninkii iska diiday ninkii ceelka lahaa cuhmaan baa ninkii u tagoo yidhi ceelkaaga haddii lagaa yidhahda lacag ku iibi ma iibin lahayd haa waan iibin lahaa way gorgortameen markaa waxay ku heshiyeen 30,000 oo dirham cuhmaan lacagtiibuu soo qaado uu dhigay ceelka furihiisa igu soo wareeji buu ka yidhi uu ka soo qaatay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam buu u keeno wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah ceelkii bi'ru rooma haddii aan keeno ishii jannada ku taallee ninkaa loo ballan qaado iska diiday aniga ma lai ballan qaadayaa markaa buu nebigu yidhi haa markaa buu yidhi ceelka furihiisii waa kan asxaabtaadana waa waqaf buu u yahay ha dhaansadaan buu yidhi ceelka haddooto biyihiisa waa waqaf hal isticmaala buu rasuul allah yidhi markaa buu nebigu farxay indhaha ayuu nebigu markaa kor u qaado wuxuu yidhi cusmaan ilaahuw raalli baan ka noqdee raalli ka noqo cusmaan maanta laga bilaabaa camal dambe hadduunan samaynba intaabuu jannada ku galay buu rasuulku yidhi bicniihi bicayni aljanna indheergarata dadkaas ahaa soo maha ya mise siyaasi salaadna aan tukanayn baa lagu odhan indheergarata weeyaanoo 50 sanee soo socda isbeddelka geeska afrika ka faalloodaa dhegaysta idaacad intoo la soo fadhiisiiyo yaa allah caqliga aakhirada ku tusini waaya caqli maaha nolosha dambe caqliga kuu jeedin waaya caqli maaha araggu haddaad aakhirada ku arki weydo ood ku xisaabtami weydo arag saxa ma aha janno hadday maqlaan asxaabta rasuulku waxay hayaan halkaaba iska dhigayeen marka jannadaasaan is hordhigaynaa markaan soomayno salaadayno sadaqada bixinayno zakada bixinayno waalidka u samafalayno janno nin baa nebiga u yimid oo yidhi jihaad baan rabaa oo inaad jihaad baxdaad u timid haa jannaad doonaysaa haa jannaan doonayaa nebi allah wax kale ma doonayo labadaadii waalid ma nool yihiin may hooyaa nool ma iyadoo kaa raalliyaa timiday mise iyadoo safarkaaga aan raalli ka ahayn maya iyadoo ooyeysaan ka imiday markaa buu nebigu uhi sow janno uma socotid haa hooyadaa ku noqo lugteeda qabso halkaa baad jannada ka geli doontaa adigu yahay ilzim rijlayha uma aljanna buu nebigu uhi uma aljanna lugteeda qabso jannada halkaa baad ka geli daacadda ilaahay markaad gudanayso waxaad is hordhigaysaa waa janno
macsi markay naftiya shaydaanku kuugu yeedhaan ee shaydaanka iyo naftu ay ku yidhahdaan ilaahay caas oo dembiga samee oo waxaa ku dhac markay naftiya shaydaanku ku yidhaahdiin waa inaad ishordhigtaa ilaahay cadhadiisa ishordhig ina batsha rabbika la shadiid ina rabbaka labilmirsaad ilaahay ku xisaabtin cadhadiisa ka cabsiya naftaada markaas marka labadaasaa la doonaya ilaahay inaan ku caabudno tamacan khawfan wa tamaca cabsi iyo rajo cabsida goormaa la rabaa waa intaad caafimaadka haysid eed nolosha haysid ee dhallinyarada aad tahay eed amniga haysatid ilaahay cabsi ku caabud maalintaad heer xanuunsatidna ama xaalad adag ay kugu timaado ilaahay raxmadiisa raje markaas oo ha quusan oo waxaad tidhaahdaa naftaada waxaad ku tidhaahdaa rabbigay waa naxariis badane waa deeqsi badane waa kariim weeyaan ilaahay waa kariim kaad la shaqaynaysa waa kariim